safarkayga gobolka Gedo haddaan ka hadlo Gedo waxaan tagay wiigii hore haddii la raali ka noqdo si fiican ayaan lagu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta gobolka Gedo uu ugu weyn yahay baransaabkii gobolka Axmed Buule Maxamed iyo gudoomiyaha degmada Garbaharey Cabdi Bare Dhagey iyo halkan waxaan kaga hambaleynayaa oo si wanaagsan ku salaamayaa gudoomiyihii degmada Luuq Cali Kadiye Maxamed oo dhammaan u heelan gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Jubbada Hoose inay yeelato maamul loo wada dhan yahay oo shacabkii Jubbooyinkana ay gacantooda ugu codeeyaan madaxweyne iyo ku xigeen oo one man one vote aga dhacda Garbaharey waxaan caalamka ummadda ku nool Soomaaliyeed iyo inta ku nool caasimadeena qaranka inta ku nool maamul goboleedyada u cadeynaya inay Garbaharey ka dhici doonto doorasho one man one vote ah madaxweyne iyo ku xigeen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobana oo halka ku ahayn madaxweyne ku xigeen goromka doorashada dhacaysa hadda musacadaas qabanqaabada doorashada ka dhacaysa Gedo qabanqaabada doorashada Gedo iyo ka dhici doonta todobada degmo ee gobolka Gedo shacabkii iyo dhammaan maamulka iyo mas'uuliyadda gacanta ku haya waxay diyaar u yihiin inay doorashadaas ay daahfuran tahay oo xor iyo xalaalna ay u dhacayso gobolka Gedo lagana hogaamin doono caasimadda labaad ee Garbaharey maamulka ugu sareeya iyo dhammaan siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho oo dhan in ay ka bixi doonaan anoo Garaad Cali Maxamed Bartiro si fiican loogu yaqaan Jubbaland horena u ahaa ciyaartooyda qaranka Soomaaliya kana soo ciyaaray ciyaarihii gobolada 18 gobol isla markaana Colonel Buuxa oo Russia 7 years tababar ku soo qaatay dalka si fiican loogu yaqaanay deegaanka Jubbaland kana mid ah siyaasiyiinta ugu tunka weyn ee Jubbaland haatana doorasho xalaal ah aan ku qaban doono Garbaharey Axmed Madoobana uusan ahayn madaxweyne inay ogaadaan dhammaan shacabka reer Jubbaland dhammaan aan xamarna ka soo kaxayn doono TV-dii oo shacabka Soomaaliyeed u soo bandhigi lahaa doorashada xalaasha ah ka dhici doonta Garbaharey sababna marka Jubbaland waxa wax loo qeybsaa qaab qabiila doorashadan Gedo ka duwan tahay tii Jubbaland ugu yaqaanay oo hore u dhici jirtay waa ka duwan tahay sababtoo ah tii Jubbaland hore ugu dhici jirtay waxay ahayd mid Axmed uu ku fadhiyo laba degmo oo 30 kiiloomitir magaalada lagu bixi karin isla markaasna maamul oo afduub ah ayuu ahaa sababtoo ah hal xaraal isku loogalayay wax tartan ah oo dhammaan qabaa'ilada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisaba ay tartan u daafuran ay ku sameyn jireen ma jirin maamul laga hogaaminayo dalka Kenya una shaqeynaya in ay la wareegaan ceelasha shidaalka ku yaala Buurgabo Madhaba iyo Kudaa dawladda Kenya inay qaadato ceelasha shidaalka ah kula shaqeynaya ayuu ahaa maamulka iska dhacay doorasho kooban oo ku koobnayd Axmed kaliya madaxweyne ah in la dhaho muddo 10 sano ah uusan tagin todobada degmo uu madaxweynaha u ahaa muddaxileedka muddadii uu hayay haatana muddaxileedka ee ka dhamaatay doorashada marka dhacaysa Gedo dhaqaale fudud ayaa ku baxay midda qof cod tahay yaa idin ka caawinay dhanka dhaqaalaha waxaa naga caawinaya dhammaan jaalidaha Jubbaland ee ku sugan qurbo joog iyo dal joog oo mas'uuliyiinta dadka u dhashay deegaanadooda inay horumariyaan dalna waxaa dhisa deegaankiisa dhisa shacabka deegaanka wuxuu u hiilan yahay in ay dhisaan aniga oo tagay Garbaharey waxaan ka soo diyaarinay in ay dhammaan shacabkii gobolka Gedo ee mas'uuliyiinta ugu weyn yahay baransaabka gobolka Axmed Buule Maxamed oo kireeyay dhammaan guryihii ay degi lahaayeen wufuudii ka degi lahayd meesha iyo doorashadii halka oo xalaasha ah oo ka dhici lahayd guryihii oo wada kareysan 350 neef oo geel ah ay ku cuni lahaayeen doorashada oo diyaar ku ah aniga indheega aan ku soo daawaday toosna aan u tagay Garbaharey shaashadaha caalamkana loogu daawanayo waxa dalka wasaare uu leeyahay xukuumadda ka jirta xukuumadda ma ogtahay doorashada ka dhacaysa Gedo oo mid kala shaqeynaysa ma ka qayb noqon karo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe golaha wada tashiga qaranka sababtoo ah waa madaxweyne mandate uu ka dhacay wasaarihii qaranka Soomaaliyeed isaga ayaa Garbaharey laguhiisa ku imaan doona iyo beesha caalamka sababtoo ah deegaankooda dhista horumarkoodana iyaga ka shaqeeya dadka deegaanka ayaga ku wacyigeliseen doorashada qayb ka noqdaan oo soo baxaan aad iyo aad dadka shacabka waa ku wacyigelinay in ay deegaankaas kulli ayaga u soo banaan baxaan oo doorashadaas xalaasha ah mid gacantooda ku jirta ay yahay xorna aan aga dhignay shacabkii inuu u codeeyo madaxweyne iyo ku xigeen si sharaf leh aga dhacdo Garbaharey haddii uu ilaahay ka noqdo
waayo deegaanadaas maanta dalkeena Soomaaliya 18 gobol baahi badan baa ka jirtay dhib badan waana gobolkii ugu warshadaha badanaa gobolkeena oo 10 sano uusan waxba ka qaban Axmed Madow uusan soo dhaafin degmada Kismaayo sababtoo ah gobolka Jubbada Dhexe waa gobolka ugu barwaaqada badan waxa ku yaala warshadii sokorta waxa ku yaala warshadii bariiska warshadii caleenta oo hantin oo homeboy degmo u jirta jilib 22 kilomitir waxa ku yaala mashruuci bariiska ee Magambo waxa ku yaala mashruuci bariiska ee Faanole waxa ku yaala ilaahay waa kulan mashruuci warshada hilibka oo wax ka qaban way Kismaayo gudaheeda iyo mashruuci kalluunka waxaa jirta korontadii ay isticmaali lahaayeen diesel iyo petrol iyo oil intaba aan isticmaalin oo ku yaala magaalada la yiraahdo Malende u jirta jilib 45 kilomitir amniga doorashada waxaa tugaya ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Gedo iyo ciidamada Jubbaland oo u dhashay oo deegaankeena ku mas'uuliyadeeda oo anaga aan gacanta ku hayno iyo shacabka reer Gedo oo waajibka ka saaran oo deegaanka u dhashay oo wiilasheena ah ayaa amaanka doorashooyinka sugaya watahay Kenya oo ognahay dhibaatay ka wada Gedo oo dhaqameey fulinaysa inta doorasho la gelin ka hor wax iska dhahdeen Kenya dhibaatada ku wada gobolka Kenya waxaan ku sheegayaa in hubkeeda iyo ciidanka aga jira dalka uu ka bixi doono nololna lagu qaban doono haddii Ilaahay alla ka noqdo doorashada maalinta dhamaato gobolka Jubbada Dhexe la xoreynayo degmada Xagar degmada Saako degmada Salagle degmada Badhaadhe degmada Jamaamo degmada Jilib intaba labada xoreyn doona ayaan ballan ka qaadnay shacabkeena doorashada xalaalka ah markay daawadaan Soomaaliya oo dhan meel kasta caalamka aga nooshahay maxaa ka jira in doorashadan ka dhacaysa Gedo ay gadaal ka riixayso bil Soomaaliya lacag ku bixinayso maya waa ben waa wax jeebkeena ah iyo deegaanadeena iyo dhaqaalaheena iyo geeleena anaga aan ku bixinayna doorasho xalaal ah ciidamadeena aan ku faangareynayna dhaqaalaheena iyo jeebkeena iyo jaaliyadaha dibadda ku nool wax dowladda central government aan ka sugayno iyo dowladda Axmed Maxamed Islaam oo madaxweynaadkiisa u dhamaaday laga sugayo ma jiro waxa isu tashtay waa deegaankii oo qabsanaya doorasho xalaal ah doorasho marka dhacdo ma dhihi karaa ma loo dhama oo hal gobol ay ka dhacday kaliya marka la fiiriyo Jubbaland oo 3 gobol ah maya waxay ka dhacaysaa tii hore waxay ka dhacday Axmed Madow intaan 10 sano oo ku xukumay degmada Kismaayo kaliya kama dhicin degmooyinka kale ee 15 degmo kale Jubbaland kama aysan dhicin taas tan waxay kaga duwan tahay waxay ka dhacaysaa 7 degmo hal degmo kaliya kama dhacayso waa doorasho ka tayo sareysa tii hore maxaa baaqay marka ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan Gedo iyo si guud shacabka Soomaaliyeed ee hadalkaaga daawanaya hadda waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan in guushii maanta laga joogo in walaalnimadii iyo deegaanka horumarkiisa iyo dhisitaankii dalkeena Soomaaliya qaran Soomaaliyeed lagu ku istaago aan kaga dhigno xuduudda ilaa reer Cambodia aan soo xirno anagoo daacad isku awoodna u leh dhamaanteena aad baan idinka mahad celinaya anigoo Garaad Cali Maxamed Xasan